السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز عشر كيني سديدات وأنا بأخذ عبد الجحنوك وحن قبل عبد الله ما أنتظر إنه بتشوي سيدين ودكتورنا ما أنتظر وحاول نصامرني بوستن جيبين كسر حكني كاش يكابيتال يلان أي إنه كسر يعني بوستن كودي إنه إيجنا general journal كيني هره كاش كابيتال يلان بيصامرني ما أنت وحن قبل عبد الله بلين بين قبل عبد الله إن شاء الله مركا بلين كمان كان سمعنا تي أكون كيسة تي أكون كم حروس عشاني إني بدي كريدت الله سمعنا يو إن مقع أكون كمركا قرية أنا لقرية بلين بين مكشينا بلين محوي هذين channel journal كين هرا رقنا عددين هرسود عدي هل transaction بين بلين كسمرني كاسو هالي هي صوتن كن وكوشرة دبيتك waxaan sheegnay marka la marayo postingka halkii aad general journalka aad gelisay baad gelinaysaa postingkana account kasta halkaad marka hore ku isticmaasho baad ku isticmaalaysaa tusaale ahaan billingka imaka 6,000 diyaar bay nagu jiraan ama debit bay nagu jiraan waana transaction dhacay November 5-teedii sidaas ayaa dhacdo kasta loo wadayaa waa la eegayaa waxaad soo sheegarinaysaa general journalka bisha koodeeda ilaa 30keeda ama dhamaadkeeda waxaad sheekaranaysaa wixii dhacday ee accountkan khuseeya billin imaka waxa khuseeya hal dhacdo kaliya tawaarataan oo farshadii dhacday 6,000 wax kale ma dhicin 6,000 baad badhaysaa balance xaq uu ka soo haray hadii ay wax kala go'ay jireen tii kalena xaq uu ku qoray in baad raacinaysaa diyaar ma ku qoran yahay marka billinkaagas intii ugu gudbina insha Allah hadana account ku xigay intii note payable ah waa diintii waqtiga lahayd warqada ay la socotay marka deyntaas ayna eegna transaction maxaa transaction soo dhacay intii aynu ku jirnay bishii November ee xisaabteeda wadnay debitka waxa ma gelin oo wax deyn note payable aynu bixinay haddaan bixinay halka gelin lahayd because of liability balkii ka yaraanaysaa waxay ka yaraanaysaa debitka marka general journal keeni hal dhacdo ama hal transaction oo kaliya tahay jiray oo ku jiray credit card-ka kaasoo ahaa 30,000 ama 30,000 ahaa 30,000 ayaa markaa iyadana u balance wax kale oo diyaar ku jira ama siyaar ku jira ma jiro 30,000 baa u balance halkuu ku qoray inaad ku raacinaysa oo siyaar ama credit ah tools and equipment maintenance tools equipment haddii aan dib ugu noqono journal journalkeeni maanta building baynu soo marnay note payable baynu soo marnay tools and equipment baynu ka wadnaa account payable baynu ku xigsiin doonaa account receivable baynu ku xigsiin doonaa revenue baynu ku xigsiin doonaa insha Allah marka note payable soo dhaafno tools and equipment baynu ku jirnaa tools and equipment hal dhacdo ayuu ahaa dhacdadaas oo ahayd 13,800 halka transaction oo kaliya taa ku jira diyaarka marka balance-kiisu waa 13,800 oo diyaar ku jira account payable waa deynta lagu leeyahay ee aan iyadu waqti ama waqad ama saxiix waxyaabaan la socon la kala qortay legal notary waxaan la socon wayaan wax sharci oo la kala saxiixday ama qoraal la sameeyay ayaan jirin ama rahmaad waxyaabaas marka account payable baro diimaha caadiga la isku yeesho taa kalena si aan soo sheegnay waa deynta ay saxiix iyo wixii la mid ah ama legal document la socdo way debit credit-keeda iyada hadii aan eegno account payable ka deynta 13,800 ayaa la inagu yeeshay 13,800 marka la nagu yeeshay deynta inuu kordho diyaarkii CRT-tiisa taana journal-keena ay sheegaysa inuu soo diiwaangelin marka hore baynu halkan u diiwaangelinaa way 13,800 waxa kale jiray transaction kale oo 6,800 aynu iyaga iska bixinay maadaama aynu iska bixinay waxay gelaysaa diyaar ama general journal-ka haddaan idinka tuso account payable baad eegaysaa kaasi waxa weeyaan account payable 13,800 waa November 17 siyaar buu jiraa sidoo kale account payable baa jira November 30 maanta ugu dambeysay xisaabta in bixinay 6,800 waynu bixinay marka taasi ka go'aysaa balance inoo soo haray ee lagu leeyahay bisha aakhirkeeda ayaan arki doonaa marka insha Allah account payable waa kan marka labadii dhacdo kala goynay 7,000 baa balance ah oo credit ah credit waxaan ku qornaa waxa weeyaan in credit card ka badnaa ama haraaga soo haray marka labada la kala gooyo wuxuu ka soo haray credit card marka 7,000
ayaa laynagu leeyahay weeyaan oo deyna maadaama 13,800 aynu soo deyn soo qaadanay 6,800 iska bixinay marka la kala gooyo waxa inagu hadhay waa 7,000 balance kasta oo barta ka muuqda waa ka actualka ah ee dhacdooyinkii dhacayay oo dhan marka credit debit-kooga la kala gooyo wixii soo hadhay weeyaa account kastaba gaarkiisa u khusaysa marka waa inaad fahantaa in account payable lagu leeyahay marka uu yahay 7,000 oo bura way account receivable weeyada tagnaa account receivable halkaas deyn ayaynu bixinay inaga bixinay waa account receivable waa deyn inaga maqan 600 baa la soo bixiyay ama cash aynu helnay marka markii labada la kala gooyay waxa soo hadhay 1,200 markii 1,800 iyo 600 la kala gooyay oo credit debit ku jiray 1,200 baa soo hadhay xagee bay ka soo hadhay dhinacii badnaa ama waa deynta inagu aynu leenahay waxay gelaysaa dhiyaarka ama si dhiyaarkii gelisaa waa 1,800 laga gooyay 600 waa 1,200 deyntaas waa balance ugu dambeeya bishaas dhamaadkeeda aynu inagu leenahay aynu dadka ku leenahay taa kalena waxay ahayd inaga tayna nagu leeyahay waayo revenue baa soo hadhay account revenue waxaan sameynaynaa waxaan soo eegaynaa intii aynu wadnay revenue soo galay waa 1,800 oo kaliya tahay wax revenue ku jiray journalka inaan ku noqono waliba idin sheegay 1,800 ee revenue-ga ahi waa account receivable weey waa deyn aynu bixinay weeyaan waa dakhli inaga soo galay deyn aynu bixinay deyntaas oo aan weli soo gaarin bay marka hore ahayd laakiin 600 baa soo gaaray iska bixiyeen 1,200 baa inaga maqan labadan account way isqusaynayaan waa revenue iyo account receivable general journalka hadii dib u noqono waynu arki karnaa account receivable 1,800 oo deyn ayaan bixinay revenue waa dakhliga soo galay oo 1,800 ah balse weli inama soo gaarin lacagtii cash aan qabsanin laakiin waynu bixinay way hadaba 600 baa la soo bixiyay black 600 oo cash ay soo bixiyay waxay ka mid tahay account receivable inaga maqnaa account receivable waa deena journal garayna waxaan sameynay credit kingiinay oo deyntii dadka inaga maqnaa way yaraatay maadaama ay soo bixiyeen way yaraatay 600 iyo 1,800 marka la kala gooyo 1,200 baynu dadka ku leenahay halkaas ayaad ka arkaysaa marka posting la sameeyay marka faa'iidada ku jirta waxa weeye in account kastaba actual balance-kiisa la soo helo oo wixii credit-ka ka galay iyo wixii debit-ka ka galay marka la kala gooyo balance-ka ugu dambeeya in la helo si loo geeyo trial balance-ka balance sax ah correct balance loo geeyo waa in credit iyo debit-kii la kala gooyo dabeedna balance-ka ugu dambeeya account kasta oo sax ah ayaa la geenayaa trial balance marka insha Allah maanta posting-kii weyn barta ku dhameynay wax kale oo account inoo soo hadhay ma jirto revenue-ga ugu dambeeyay account-yada dhan weyn soo posting garaynay marka hore weyn soo journal garaynay weyn soo posting garaynay trial balance baa inoo soo hadhay waa su'aalaha barta laga weydiiyay hay'an journalizing bay sameynay post to t account bay sameynay prepare trial balance baa inoo soo hadhay casharkeena ku xigeen ku dhigan doonaa insha Allah dib raado oo aniga Khalid Abdi Gahnoog waxaan leeyahay sida ay dadaal wacan insha Allah waa casharkan iyo casharkeena waxiga oo aynu ku dhigan doono trial balance dib raado. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.